Aha. Abdallah, wengi kwa Facebook eh? Kwa tayari. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدك كل هذا وكروك عدونه مركا سجد الغاتا دو إله يرادو. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وبعد. والله ليال جمعة ونكسن waxaan idinka salaamayo waa magaalada Nairobi xaafadda Islii carigan Kenya waxaan u joogaa ee aan u imidna waa dacwo weeyaan waxaan daa'iman daba socdaa waa dhalinyaradan iyo hortaagan waa dhalinyarada runtii halka iga daawanaysa aad baan idin jecelahay runtii waxa iga qaylisiinayana waa jacaylaan idin qabo kelmaddan rabo maanta inaan jeediyo jimcahan aan idinla qaybsado runtii dadka halka jooga Nairobi oo kaliya maaha bal waa kumanaanka ama boqolaalka kun ee iga daawanaya meediyaha walaalayaal waxaad ogsoon tihiin dadkeena Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada runtii in badan baa waxay ka soo baxaan beryahan iskuuladii oo ay soo qalin jabiyaan form 4 ay ka soo baxaan high school ayay dhameeyaan jaamacaday galaan way ka soo baxaan iyagoo fara badan oo waliba kumanaan ah ayaa shaqo lama haayo waalidkiina wuxuu geliyay lacag intiina oo dhan jaamacaday inaad soo baxdeen laga yaabaa dugsiga sare inaad soo baxdeen macaahid inaad soo baxdeen primary-giini ilaa iyo hadda waalid baa idin biilaayay oo lacag idin geliyay maanta waxaa loo baahnaa gacantii wanaagsanayd ee waalidku idin soo geliyey inaad guddaan waalidku wax kale ma qaban karaan hadduu primary iyo dugsigii sare iyo macaahidii ama jaamacadihii ay idinka soo bixiyeen waa intay qaban kareen shaqo idin siin karaan shaqada xagga Ilaahay baa laga sugaa marka waxay noqotay waalidkii markuu kaalintiisii ka soo baxay dhalinyaradii heerkii la rabayna runtii ay joogaan maanta shaqo ma hayaan gobolladii waa laga soo wada tegey waxaa la joogaa magaalo Nairobi baa la yimi Soomaaliya oo kale tuulooyinkii iyo degmooyinkii baa laga soo baxay magaalooyinkii waaweynaa baa la yimid caasimadii oo kale la isugu imanaya Djibouti oo kale waa gobolladii waa laga soo kala tegay dhalinyaradii shaqo ma laha caasimadii baa la imanaya Ethiopia sidoo kale dhalinyaradeennu waxay rabaan anigu dhalinyaran ahay dhalinyarada siday u fikiraan waa aqaana waxay wada rabaan iyagoo shaarcad oo taay xiran timo jaran idaylkood inay xafiisyada fariistaan inay maareeyayaal noqdaan inay manager noqdaan inay madax noqdaan inay maalin ku taajiraan war sidaas rabtaan Soomaa dhalinyaraduna sidaas rabtaa ha marka waliba hatta jiraanay gacmahooda nadiifa inay taajiraan bay doonayaan suuragal maaha idaylkeen xafiis ma wada tagi karno idaylkeen madax ma wada noqon karno idaylkeen maalin kuma taajiri karno maxaa xal ah marka waxaa xal ah oo aan xal u arkay aniga runtii ilaahayna waan baryayaa waxaan xal u arkay dhalinyarada in badan oo runtii khibrad ah oo aan dheerahay in aan ku kordhiyo si ay u maareeyaan noloshooda inta dambaysa ilaa waalidkii kaalintiisii uu ka soo baxay waxaa loo baahan yahay markaa in dadka ganacsatada ah ee ilaahay hodmiyey wax haysta culimada dadka siyaasiyiinta ah dadka hadalkoodu uu soconayo awoodoodu soconayso in ay meeleeyaan dhalinyarada Soomaa inay wax u qabtaan dhalinyarada Soomaa annaga marka ka culimo ahaan ka ducaad ahaan runtii wax badan ma qaban karno laakiin waxaan qaban karnaa shaqadii ay qabanayeen rususha maadaama ilaahay uu yiri ayaa rasuulku uu yiri sallallahu alayhi wasallam
alculamaau warathatu alambiyaa sooma waa maxay waa shaqada tawjiihinta ah waa shaqada hanuuninta ah waa shaqada la tusayo shacabka la tusayo waddada saxa ah si ay u noolaadaan waxaan marka beryahan runtii bilaabay shaqooyin fara badan oo ka dahsoon dhallinyaradeenna inaan u soo bixinno oo aan tusno waa shaqo runtii aad qaban kartaan waa shaqo mustaqbalkiinaa fog ee ah guur oo ah dhaqid oo ah inaad guryo heshaan inaad caafimaad heshaan inaad dee awlaad barbaarisaan mustaqbalkan dheer ee idin sugaya waddadii aad ku bilaabi lahaydeen ayaan rabaa inaan idin tuso in badanna runtii way ka faa'iiday in badanna way ka faa'iidaysanaysaa hadda walaalayaal islaamkeennu aad u dhegaysta kelmadda ayadaa islaamkeennu wuxuu doonayaa dadka u ehel sheegta ee muslimiinta ah ayaa wuxuu doonayaa inay ahaadaan aqwiyaa aghniyaa acizaa ma waxba iibsanayaan waxay doonayaan islaamku wuxuu doonayaa ehelkiisu in muslimiintu inay ahaadaan aqwiyaa inay dad xooggan noqdaan oo ku xooggan shaqada ay qabanayaan ku xooggan sharafkooda ay dhowranayaan ku xooggan sumcaddooda ay ilaalinayaan ku xooggan baagamuundadu ay ka tegayaan ku xooggan inay noqdaan inaysan noqonin gacan hoosoo liidata ku xooggan inaanay culays ku noqonin ehelkii iyo aqribada ku xooggan inay gacan sarreeyaan aqwiyaa inay noqdaan baa la doonayaa islaamku wuxuu doonayaa inaan noqonno dad awood leh wuxuu doonayaa dad khani ah inuu noqdo muslimiintu waa inay akhniyaan noqdaan kuwa qalbigooda deeqtoon kuwa ku qanacsan ilaa moog tahay haninimada iyo taajirnimadu ma aha inaad hanti badan leedahay inaad cimaaradahan leedahay inaad baabuur leedahay business inuu kuu kala kacsan yahay ma aha taajirnimada taas alghinaa ghina annafs qofka waa inuu deeqtoon yahay waa inuu qanaaco leeyahay qofka waa inuu ku qanacsan yahay maxay ku qanacsan yahay xaaladda uu ku sugan yahay waxa uu haysto inuu ku qanacsan yahay ilaahay siduu u abuuray inuu ku qanacsan yahay inuu ku qanacsan yahay halka uu seexanayo inuu ku qanacsan yahay wuxuu cunayo waxa uu cabbayo hadba guriga uu ku nool yahay xaaladdiisaan hadda ilaahay baa u qadaray ilaahay baa u dooray soo maa sida aad jeceshahay waxaa ka weyn siduu ilaahay jecel yahay inaad noqotid akhniyaa ayuu doonayaa hani inaad noqotid buu islaamku doonayaa inaad hani ku noqotid maxay qanaaco inaad qanaaco leedahay inaad sabri dulqaad leedahay inaad ku deeqtoon tahay gacantaada inaanay hoosaynin oo ay sarrayso wuxuu doonayaa islaamkeennu inaan casiisiin noqonno dad cizi leh sharaf leh dad gacantoodu sarrayso rasuulka wuxuu leeyahy salى اllahu عalayhi wasalam almu'minu اlqawiyu khayru waaxabu ilى اllahi min almu'min الdaciif mu'minka qawiga ah ee xooggan ma aha kan murqaha kuukuusan kan murqaha kuukuusan maaha ma aha kan six bags kale ma aha kan garbaha waaweyn ma aha mu'minka qawiga ah waa mu'minka qanacsan qanaaco leh oo ku xooggan qanaaca iyo sabir ku xooggan iimaan ku xooggan caqiido ku xooggan akhlaaq wanaagsan ku xooggan ku qanacsan xaaladda uu ku sugan yahay almu'minu alqawiy waa mu'minka aanan u baahnayn hayrkii aanan ku tiirsanayn hayrkii bal isaga lafsadiisa ku tiirsanaya ilaahiisa kaasaa qawi ah mu'minka qawiga ah wuu ka khayr badan yahay kana ilaahayna uu ka jecel yahay mu'minka daciifka ah la'iimka ah bakhiilka ah gacanta hoose ku qanacsan baryotamaya shaxaad ku noolka ah ii dhiib iga bixi isii yah waa iga jajaban tahay caawa cashada ii goysay kiradaa laygu leeyahay
kaa dawarsanaya ee mu'minka ah shaxaatamaya ilaahay wuxuu ka jecel yahay kan qawiga ah ninka qawiga ah eeg rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa la weydiiyey dhallinyaroy waxaan la hadlay waa dhallinyarada doonaysa inay mustaqbal samaystaan waddadan ha lagu bilaabo waxaa la yidhi ayulkasbi afdal wax la qabto maxaa ugu wanaag badan dhallinyaradu wax ay qabato ilaa iskuulladii bay ka soo baxeen jaamacadiyaa laga soo baxay shaqo lama hayee dhallinyarada hawl ay bilaabaan oo ay ku bilaabaan mustaqbalkooda hawshee u qiimi badan muxuu yidhi xabiibku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi camalu rajuli biyadihi wa kullu baycin mabruur wuxuu yidhi shaqada qofka ragga ah dumarkana waa ku jira rag haddaan dhaha waa soo hoosgashaan ee ogaada ya qofka ragga ah shaqada uu gacantiisa ku qabanayo ayaa ugu fadli badan soomaalida maxay tidhaahdaa biyo sacabadaa looga dhergaa waxay kaloo tidhaahdaa mara kaa dheer kuma dhaxan tirto soo ma ahayn laakiin inaad isku kalsoonaatid ilaahaaga ka soke nafsadaada inaad ku kalsoonaatid wuxuu yidhi maxaa shaqadee ugu fadli badan hawla qabtaa hawsha ninka raggaa gacantiisu waxay qabato gacantaada inaad maashid muruqmaal aad noqotid wa kullu baycin mabruur iyo busineska beec walba ganacsi walba oo ilaahay ka raali yahay oo aan qish ku jirin oo xalaal ah maxaad ka fahmaysaan xadiiska hadda waxaad ka fahmaysaan gacmaha waxay qabtaan ilaahay baan ku dhaariye dhallinyaradeenna xoogga badan caafimaadka qaba da'da yar ma waayeen waxay gacmahooda ku qabtaan ma waayeen dhallinyaro ma la waaye waa hawl badanaa jirta halkan waxaan ku arkaa haween fara badan oo hadda taagtaagan oo dhar wareejinayo warata ah soo maaha allaha u barakeeyo allaha u barakeeyo waa ku farxaa runtii gabar xijaaban ma aha rag ogow gabar igu qaba gabdhaha halkaa bal dadkaa ku qaba ilaah baan kuu dhaariyey eeg soo ma aragtid eega wallaahi waa ku farxaa mar walboo aan arko dhallinyaro soomaaliyeed rag iyo dumar dhar wareejinayo qorraxda taagan markaan arko waa ku farxaa runtii maxaa yeelay waa shaqo la qabtaa shaqada u qiimiga badan waaye markaan arko wiil alaab wareejinaya cajalo wareejinaya markaan arko wallaahi nin kabaha baalashaaya markaan arko wallaahi waa ku farxaa maxaa yeelay ninkan wuxuu ilaalinayaa waxa uu helayo ka soke biyaha wejigiisuu ilaalinayaa inaanay daadanin soo ma ogid wejigaagu markay biyuhu ka daataan subagu ka dhammaado imajkaagii waa dhammaadee sumcaddaadii dhulkay dhacday waxaa la yidhaahdaa xataa eeg maalinka qiyaame dadka dawarsanaya shaxaatamaya ii dhiib gacantoodu hoosayso maalinka qiyaamaha waxay imanayaan skeleton wejigooda oo aanan wax hiliba lahayn qolof keliya ayay imanayaan biyuhu goormay daateen waaguu adduunka joogay biyihii waa daateen markaad mid la'iim ah bakhiil ah xaaladdaada aanan ka warqabin aad albaabkiisa istaagtid oo aad gacanta u horsatid oo uu kuu soo diido wejigaagu soo noqonayaa inkastoo in badanoo aan garanaya sariigtiiba ay ka tageen haddaad u diidid haddii kale yaa aanan u kala socnayn rasuulku markuu yidhi sala allahu calayhi wasalam shaqo waxaa u qiimi badan shaqada qofka gacantiisa uu ku qabanaayo saxaabadu waa maqlaayeen waxaa ka mid ahaa cali ibni abi aalib karama allahu wajhahu waradia allahu canhu waxaa ka mid ahaa cabdullaahi ibni mascuud cabdiraxmaan ibni cawf abubakr ridwaan ullaahi calayhim markii sidaa la yidhi iyagoo hanti leh ayay dhaqaaqeen inay gacmahooda wax ku soo kasbadaan eeg ibni mascuud ayaa wuxuu ahaa caamil waa dadkii ka soo haajiray maka gacantiisa inuu ku shaqaysto mudduu soo shaqeeyey maalin buu salaamay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markuu salaamay rasuulku wuxuu dareemay gacanta cabdullaahi ibni mascuud inay adag tahay suu shaqo u qabanayey gacantii baa adkaatay qolof bay noqotay gacantiisii markaasuu gacantii intuu sidaa u qabtuu fiiriyey wuxuu yidhi inna haadihi اlyad
yuxibbuha allaahu wa rasuuluh gacantan ilaahay subxaanah iyo rasuulkiisa yaa ayaa aad u jecel gacantaada cabdullaahi ilaahay rasuulkiisa eeg waxa dhahaya waa khayru khalqillahi ku saliya xabiibkiina maxaa gacantan muxuu u jeclaaday alle gacanta ibni mascuud muxuu ilaahay u jeclaaday rasuulka muxuu gacantan u jeclaaday wuxuu u jeclaaday waa gacan ilaalisay sharafkeedii gacan ilaalisay sumcaddeedii gacan diidday inay hoos marto inay liidnaato waa gacan sare martay gacan shaqaysatay gacan dhididday weeyaan gacantan maalin kale wuxuu yidhi ibnu mascuud innii la amqutu rajula araahu faarigan laa fii camali اdunya walaa fii camali اlaakhira waxaan arkaa ninka wuxuu yidhi waxaan u caroodaa in aan arko qofka rag iyo dumarkuu doon ha ahaadee oo uunan haynin camal adduunyo iyo camal aakhiro midna inaanu haynin aad baan uga caroodaa buu yidhi maxaa wacay wakhtigu waa qaali inaad shaqaysid gacmahaagu inay wax qabtaan haddaad caafimaad leedahay aad xooggan tahay cudurdaar ma lihid soo maaha okay haddana eeg ibnu mascuud nin caatuu ahaa radia allaahu canhu wa ardaah lugihiisuna waa dhudhubnaayeen runtii maalin baa iyagoo saxaabada oo dhan sheekaysanaya rasuulkana uu fadhiyo sal allahu alay wasalam ayaa geed buu fuulay ibnu mascuud caday waxbuu soo goosanay halkaa kubka ah ayaa maradii ka faydantay insha allah ayaa ka faydantay lugtii dhuubneed saxaabadii waa ku qosleen marka maxaad dhihi lahaydeen idinka lugubaasta soo maha lugubaastaa la dhihi lahaa laakiin way dhaheen way kaftami jireen saxaabada ma aanay xanaaqsanayn ilkahooda iyo bishimahooda waa furnaayeen soo ma ogidin ma aha annagoo kale labada wada socotay sheekaysanayso way isu xanaaqsan yihiin soo maa way kaftami jireen rasuulkana waa joogaayo ogow sala allahu calayhi wasalam markaasaa wuxuu yidhi war ma waxaad ku qoslaysaan lugahan dhuudhuubana ibni mascuud haabay dhaheen rasuul allow markaasaa wuxuu yidhi wallaahi lug ka mida labadan lugood ee adduunka maanta kiilo ama 2 kiilo ah marka la saaro wallaahi haddii la saaro mid ka mida miisaanka aakhiro buurtaa uxuda way ka culus tahay weligiin ma aragteen hal lug oo bini aadam oo buur ka culus weligiin ma aragteen maxaa yeelay waad garan kartaan waxaa yeelay gacantiisaa adkaatay gacantuu ku shaqaysanayay war dhallinyaradeenan jaamacadaha ka soo baxay dugsiyada sare ka soo baxay iyo macaahidda ee shaqo la'aanta iyo ibni mascuud yaa fadli badan waa iska caddahay soo maaha ibni mascuud baa ka fadli badan ibni mascuud beeruu qodaaya dhagax buu jebinayaa u kaale cali ibni abi aalib waa cali yaa ka laandheeraysan kulligeen waa naga laandheeraysan yahay soo maaha waa naga qabiil fiican yahay runtii rasuulka ay ilma adeer yihiin sal allah alay slam wuxuu qabaa faatimatu zahraa ayuu qabaa sayidatu nisaa'i ahli اljanna eeg ibni cali markuu maqlay rasuulka inuu yidhi shaqatan ugu fiican waa camalu rajuli biyadih qofka gacantiisa wax uu ku qabto muxuu sameeyey markiiba xariggiisii buu qaatay wuxuu qaatay garweyntiisii buuruhu fuuli jiray oo uu dhagxaan ka soo jebinayaa waa ka isagoo shicraya oo dhahaya laxamlu sakri min qimami aljibaal laxamlu sakri min qimami aljibaal axabu ilaya min minan الrijaal yaquulu الnaasu lii fi اlkasbi caarun faqultu اlcaaru fii dulli الsu'aal wuxuu yidhi laxamlu sakri min qimami aljibaal inaan ka soo qaado dhagxaan buuraha dhakadooda meesha ugu sarraysa buuraha ma uusan dhihin bannaan dhagxaanta bannaankaa laga heli karaa laakiin haayo meeluu gaaray eeg inaan dhagxaan intaan xarig xirto garweyn qaato birtii dheereed qaato inaan buur fuulo oo aan dhagax jebiyo dhidido u dhibooda soo xambaara dhulka keeno oo haddana noqdo
sidoo kale aan keeno ayaa waxaan ka jeclahay inuu rag wax igu sheegto minan الrijaal anaa iskuul ka bixiyey anaa qado shalay siiyey anoo isagoo la haystaan dad ka furtay kiradii baan ka bixiyey dharkii ciidda anaa ilmaha ugu gaday anuu idul saaran yahay la'aantay ma noolaan karo eeg minan الrijaal in laguu manna sheegto wuxuu yidhi inaan buur fuulo waxa dhahaya waa cali ibn abi طaalib radia allahu canhu وarضaah inaan buur fuulo oo dhayax soo jebiyo oo gacantayda aan ku soo jebiyo oon dhabarka ku soo qaado ayaan ka jeclahay rag inuu wax igu sheegto laakiin eeg yaquulu الnaasu lii fi اlkasbi caar laakiin dadku waxay leeyihiin shaqadu waa ceeb waaye shaqadu waa ceeb dhagxaan in meel nin shariifa oo akhyaaro maasha allah inuu buur fuulo u dhayax jejebiyo waa ceeb ayay leeyihiin waxay leeyihiin in nin maasha allah yah oo laandheeraah inuu kawaan intuu meel furto ari inuu gowraco inuu hilbo jarjaro oo uu kiileeyo waa ceeb bay leeyihiin waxay leeyihiin in nin dugsi sare ka soo baxay ama jaamacadba dhameeyey uu baarbiyeeri intuu furto uu dadka timaha u jaro waa ceeb waxay leeyihiin nin weyn inuu harqaan dul fariisto oo uu harqaan leh ama dawaaro inuu samaysto waa ceeb waxay leeyihiin inuu intuu bannaanka u baxo beeraha u tago oo uu beer soo falo joornaati waa ceeb yaquulu naasu lii fi اlkasbi caar waxay leeyihiin shaqadu waa ceeb faqultu alcaaru fii dulli الsu'aal adna waxaan ku yidhi buu leey waa caliya ogaada adna waxaan ku yidhi wallaahi inaan kaba baalasho ceeb maaha inaan biro garaaco oo aan tumo kirliyada mindiyaha seefaha inaan sameeyo tarmuusa inaan sameeyo biraha ceeb ma aha sababtoo ah saxaabadii soo nagama qiimi badna la noolaan rasuulka sal ly slam yaa u tumi jiray biraha yaa mindiyaha seefaha fallaaraha warmaha hubka ay ku dagaalamayaan hubkii gaalo lagu jebiyey yaa sameeyey waa saxaabadaa samaysay maahanay baryootami jirin ceeb ma wuu leeyahay inaan bir tumo inaan beer falo dhagax jebiyo soo qoriyaysto business waratay inaan noqdo ma aha ceeb ma aha laakiin ceebta waxa waaye fii dulli su'aal inaan wax weydiisto inaan gacanta hoorsadaa ceeb ah waxaa ceeb ah inaan gacantaydu hoosayso khayrkay inaan ku tiirsanaadaa ceeb ah gobollada intaan ka soo baxa nairobi inaan reer dul saarnaado oday miskiin oo isagaba kacaakufaaya ilmihii yaraa wuxuu u keenay inaan dul fariistaanoo dhallinyaro xoog leh caafimaad qabaa ceeb ah waxaa ceeb ah inaan qof khayrkay oo shaqo yar bilowday inaan dhaha qadayga bixiyaa ceeb ah karaa liigu leeyahay inaan dhaha ceeb ah anoo caafimaad qaba maxaa wax u soo baranaayey waxaa wax u soo baranaayey in caqligaygu kordho mihinadaydu xirfadaydu inay korodho inaan ka maarmo khayrkay ayaan wax u soo baranayay soo ma laakiin uma soo baranin inaan khayrkay dul fuulo wax uma soo baranin inaan gacan hoose noqdo oo aan baryo ku nool sixaad ku nool noqdo soo ma maxay ii faa'iidaynaysaa jaamacadahan waraaqahan ka wato oo aanan xafiis ku helin waa inaan shaqaystaa soo ma marka wuxuu yidhi inaan shaqo yar oo hoose qabta ceeb maaha aan sharafkayga ku ilaalinaya laakiin waxaa ceeb ah inaan wax weydiisto waxaa kaloo ceeb ah sida dhalinteennu u badan tahay gabar maqan oo orobo ku maqan oo 6 iyo 7 cunug haysata oo iyadaba intay ilmihii odagu u dhiibtay 2 saac soo tuuranaysa shaqaan soo tuuranaa bay leedahay waxay soo tirtiraysaa isbitaal iskuul bay soo tirtiraysaa shah bay soo karinaysaa iyadoo orobo joogto way dhididaysaa markee waxay og tahay gacanteeda waxa ay ku qabsato wax walba inay uga qiimi badan tahay gabar iyadiiba ilmihii yaryaraa biilaysa oo 2 saac wax soo tirtiraysa ayaa waxaa ceeb ah in aad telefoon u dirtid oo aad dhahdid iisoo tuur inaad dhahdid adoo halkan joogo xooggan oo 20 jira soo ceeb maaha taasaa ceeb ah cali wuxuu leeyahay faqultu alcaaru fii dulli su'aal inaan xooggayga wax ku qabto ceeb maaha in aan caafimaadkayga wax ku qabto ceeb maaha inaan dhallinyaronimadayda aan wax ku qabto ceeb maaha
laakiin waxaa ceeb ah in aan qof halkaa barafka xamaalaya tagsi saaran 24 saac nasiinyo waayey inaan dhahaa ii soo tuur inaan dhaha inaan baryo tamaa ceeb ah inaan shaxaad ku noolaadaa ceeb ah khayrkay inaan ku tiirsanaadaa ceeb ah warsoo sidaa maaha that's why marka shalay runtii waxaan bilaabay barnaamij aan dhalinyarada ilaahay mustaqbalkooda ha toosiye aan ugu talagalay in aan yacni aan ku tuso mustaqbalkooda iyo waxay qaban lahaayeen way walbay igu hayaan dhalinyarada shalay su'aalo badan baa la ii weydiinayaa oo la ii leeyahay sheekhu matima jaraa mid kalaa iman doonta oo aydan weli arkin oo lay dhihi doono runtii sheekhu ma jazaarba oo yacni ma hiliblaa oo lay dhihi doono sheekhu ma kuugba ma waxbuu kariyaa sheekhu ma weytarba ma kabaryeeriba sheekhu ma harqaanlaa hawlahaas waxaan u qabanaya mataqaanaan dharkii caddaaban shalay xidhay runtii anoo runtii wallaahi madaxaygu kor jiro anoo casiiz ah anoo faraxsan anoo faanaaya ayaa waxaan xidhay dharkii kawaanlaha uu xiranayay kawaan halkan ku yaalla sigiskan galay hilibkii ariga ahaa oo meesha buuxa anoo hilibkii jarjaraaya ayaan sawir galay anoo kiilaynaya beerka iyo keliyaha anoo maaragtaa neefka kala baxaaya soo ma garan maxaan u yeelayaa sidaa runtii kelmaddan waan ka jeediyey meesha waxaan u yeelayaa dhallinyaradan waxaan tusaayaa shaqadan inaanay ahayn ceeb tan camar ibni caas radia allahu canhu wa ardaah ayaa qabanayo jazaar ahaa hilibla ahaa waryaa saxaabada hilibka u gogoyn jiray soo iyaga ma ahayn mis hilba ma cuni jirin saxaabada yaa kawaanada u joogay soo iyaga ma ahayn soo shaqo xalaal oo sharaf leh maaha allaha barakeeyo maxamed rashiid bujariyaa sigiska ku yaalla runtii wuxuu yidhi annagoo fara badan reerkeenna waxaa lagu soo koriyey aabbe uu ku soo koriyey yaa ilaahay ha xoojiye waa hilibkan reer dhan baa lagu soo koriyey waa reer dhan ayaa lagu soo koriyey wuxuu yidhi reeraha halkan ka ganacsado oo dhan gaarizology zoonkan dhan markay maanta dhan ay lacagaha noo soo ururiyaan anay soo maraayaan arigan u sii diyaarinayaa lacagihii maanta dhan qorraxdaa u fadhideen isagaad ku shubaysaan 15 neefaa u suran meesha haddaba inaad aadaan baa laga yaabaa ood hilibka ka sii gadataan war ninkaa shaqadiisu maaceebba lacagihiinii uu furanayaa soo maaha oo wax loo baahaya dhallinyaradeenna waxaan rabaa inay noqdaan aqwiyaa akhniyaa inay noqdaan gacantooda wax walbo ay qaban karta inay qabtaan waxaan kaloo tegey baarbiyeeri ku yaala toalafkaan tegey shalay dharkii baan xidhay anoo timo jaraaya way aragteen soo maaha waayaan u jaraayaa timaha commentiska akhrina waxay leeyihin sheekhu ma timo jaraa sheekh shaqadaadu ma timo jara ceeb maaha timo jaraha maalinkuu furayey anuu ii yeeray waa dhowr bil ka hor anaa suuratulbaqari qur-aan baan ugu soo akhriyey waa u soo duceey inuu ilaahay runtii u barakeeyo maanta wiilkaa wax ka qurux badan ma laha 24 saac waa buuxdaa shaqaale ilaa iyo dhowr iyo 10 baa u jooga reer dhan buu ka biilaa jaamacaduu dad ka bixiyaa isagana waa ka magaciisii iyo madaxiisii waa kor hadduunan qaban lee wuu tuugsan lahaa sow maaha haye waxaan kaloo samayn doonaa insha allah waad arki doontaane anoo kuug ah oo wax karinayo jikadu ku jiro dhididsan oo miikowgii baashii wareejinayan ood arki doontaan ceeb maa inaan dhallinyaradayda walaalahay ilmahayga inaan tuso shaqada gacmaha camalu rajuli biyadih in uu yahay shaqada qofka uu gacmihiis ku qabanaya ta ugu fiican anoo kabaryeeriyo dad u adeegayo wax geynayo hadda kahor soomaalidan arga anoo jiko ku jiro oo reerka ilmaha u adeegayo ceeb maa waa sharaf rasuulka gurigiisuu ka shaqayn jiray sala allahu calayhi wasalam eeg rasuulka salawaatullahi wasalaamu calayh isagoo dhiirigelinaya in qofka gacmihiisa uu wax ku qabto tanaan ku khatimayahay ayaa wuxuu leeyahay la an ya'khuda axadukum xablah uma ya'ti aljabal inuu midkiin inuu soo qaado xariggiisa inuu soo qaato
garweyntiisa iyo masaartiisa iyo faaskiisa uu soo qaado uma ya'ti aljabal oo uu buurta yimaado fayatii wuxuu leeyahay fayaأtii bixusmati min alxaطb fayabiicaha oo uu la yimaado oo uu kala soo dego buurta xirmo qoryo ah oo uu iibiyo fayakufa allaahu bihaa wajhah oo uu markaa kharashkii uu helay iyo wixii uu qoryaha iyo dhagxaanta uu ka helay uu ku ilaashado wejigiisa uu ku ilaashado sumcaddiisa khayrun min an yas'ala annaasa acطawhu aw manacuuh ma arkaysaan ayaa uga khayr badan eeg aad ii dhegaystaan inuu fuulo midkiin buur xarig intuu qaato inuu xaabo la yimaado inuu dhagxaan la yimaado inuu qoryo la yimaado oo uu iibiyo oo uu ku ilaaliyo wejigiisa iyo sumcaddiisa oo uu ku ilaaliyo gacantiisu inuu hoorsado ayaa waxay ka khayr badan tahay in uu khayrkii wax weyddiisto oo ay siiyaan ama ay u diidaan hadday siiyaanna waa ceeb hadday u diidaanna waa ka sii daran maxaa yeelay ninkaad wax weyddiisanaysid isaga labsadiisa gacantiisuu ku xamaashi xoog baad leedahay isagoo kale caafimaad baad leedahay isagoo kale isku daa baad tihiin see dulsaar ugu noqonaysa waxaan halkan ku aragnaa dhallinyaro wallaahi shaqaynaysa oo qaar badanoo gobollada ka yimidna guryahooda ay joogaan oo la biilayo war miyaana isceebaysanayn xoogga ilaahay uu siiyey wiilkan shaqaynaya waad leedahay caafimaadka ilaahay uu siiyey waad leedahay da'du uu yahay waad tahay wuxuu qabanayo maxaad u qaban la'dahay waa arrin aad iyo aad u foolxun sowmaa dhallinyaradii ilaahay ha barakeeyo ilaahay waxaan ka barya dhallinyarada allah ha barakeeyo abaabakr asidiiq radia allahu canhu ardaah ayaa awr buu fuulay geel wuxuu marka waxaa ka dhacay dawliskii ama hoggaankii xariggii uu ku wadi lahaa geela saxaabadu waa ag taagan yihiin awood wuxuu u leeyahay war ii soo dhiiba hoggaanka inuu dhaha ii soo qabta inuu dhaha sow maaha ma uunan yeelin darsi buuna barayaa abaabakar wuxuu sameeyey wuu degey saxaabadiia ku soo orade maxaa ku soo dejiyey nin odayna wuu ahaa maxaa ku soo dejiyey annagaaba mayuu yidhi hoggaankii buu soo qabsaday way la sii yaabeen oo ma waxaad u soo degtay hoggaanka hashi inaad qaadatid haa buu yidhi oo annagaa kuu qaban lahayne maya amaranii xabiibii anlaa as'ala annaasa shay'an wuxuu ii amray xabiibkaygii waa muxamed ku salli xabiibkaaga sal alay slam wuxuu ii amray xabiibkaygaa wuxuu ii amray inaanan qofna wax weyddiinin allah yah inaanan qofna aanan wax weyddiin muxuuna barayaa wuxuuna barayaa nolosheenna inaan annaga isku tiirsanaana haddaan awood leenahay ilaahay ka soke inaan casiisiin ahaano dad madaxoodu sarreeyo gacantoodu sarrayso oo isku tiirsan haddaad kici kartid oo aad wax qaban kartid qabo haddaad guri soo tirtiri kartid soo tirtir haddaad xafiis soo dhaqi kartid soo dhaq haddaad guri soo dhisi kartid soo dhis haddaad beer qodi kartid beerta soo qod 2 saac 3 saac soo tuuro maxaa yeelay taasaa waxay ka qiimi badan tahay baryo badan oo ama wax lagugu siiya ama wax lagugu diido shayga la yidhaahda cirdiga ama sumcadda imageka qofka wax qaali ah waayo baanbaan yaanan lagu jebinin wejigu waa baasaboor yaan iska hadlaynin casiiz noqo cizatu nafsi qofka inuu ku shaqaysto waxaad cunaysaan waa lidiin qoray way imanaysaa waxaan walaalayaal ku soo khatimayaa barnaamijyadan oo dhan beeriyaha waxaan u samaynayo horta waa in qof walba shaqo way taallaa magaaladan way ku badan tahay iyo meel walba hadday tahay Soomaaliya hadday tahay Djibouti Ethiopia kulli gobollada aan degno shaqo way taallaa yaanan laga xishoonin yaan la doonin in maalin lagu taajiriyaan la doonin shalay anoo meel ka cashaynaya wiil aan wada fadhiinay baa wuxuu leeyahay gaarisan joogay waan iska qayili jiray dugsi sare waa ka baxay
wax la qabanaya ma leh kis yaroo nala siiya mar walbaba qaad baan ku qaadanaa guryahan isku xirnaa markaan gaajoonnana reerkan boosho u doonanaa iyo sor raashin laakiin markii dambe dhiirigelin buu helay dad baa dhiirigeliyey magaaladanuu yimid hawl buu bilaabay wuxuu yidhi wallaahi hawshaan bilaabay cid yoogeyd ma laha baashaan giriilka ahee dhulku lagu qodo dhagxaanta lagu jebiye ee weliba markaad qabatid jaraynays jagdheese dhulka lagu jebiyo ayaan ka shaqaynayay buu yidhi way ila yaabi jireen buu yidhi dadkii aad bay iila yaabeen laakiin waxaan qaadanayay 10 kun 12 kun ayaan ku qaadanayay kiradaan isaga bixinaya waan ku noolaa bal dad baan wax ka bixinayay buu yidhi waa sida la doonayo shaqadaas aan bilaabay oo iyagoo dadku ila yaaban yihiin wallaahi maanta kambani gooni ah oo muxor ah oo aan u madax bannaanahay oo aan dad badan shaqo ka siiyey ayaan leeyahay buu yidhi maanta hadday waxaan wada soconnay wiil yar inaanu joogin baan u maleeyahay cabdixakiin waa ashifa herbal waa geedageedaha iyo mindaawaadkii wax ayuu iibiyaa xabad soodan ku bilaabay buu yidhi maantana eeg maanta ashifa hargeysa xafiis guryo dhan bay ku leedahay xamar guryo dhan nayrobina waa halka ummad badan buu biilaa dad badan buu wax u qabtay shaqada wuxuu ku bilaabay xabad soodo 1,000 jeer waxaan u ducaynayaa oo ilaahay u baryayaa dhalinyaradan halkan taagtaagan rag iyo dumar ee waratada ah ee dharka gacmaha ku sida ee raadsanaya shilinka xalaasha ah waa shaqo ilaahay raalli ka yahay allah u barakeeyo shaqada allah u barakeeyo gabdhaha iyo ragga shaqada allah u barakeeyo qof walbo warata allah u barakeeyo xaaraantana allah uga ilaaliyo ilaahay waxaan ka baryayaa gacan sare allah ku siiyo ilaahay ha kaga irsaaqo oo ha kaga kaafiyo gacanta dadka inay dad dul saarnaadaan qof walba oo shaqadiisa xor u noqda oo shaqo hoose bilaaba gacantiisa maala allah u barakeeyo ilaahay ha u barakeeyo wixii dhiirigelin ah ee aan samayn karno u samayn karno dhalinyarada runtii waxaan hakaranayna ma aha ciidan ka hakaranayna ma aha qalbigeenna dhalinyaradu yihiin qalbigan ku haynaa shalay wax ka wahanka igeliyey dharkaa dhiigale ii xiray waxa timajaraha igeeyey ee bahasha mishiinta gacanta ii saaray wallaahi waa jacayl aan idin qabo weeyaan inaan idin tuso in shaqadaasu xalaal tahay hadday xaaraan tahay ama ilaahay uusan raalli ka ahayn ma aanan qabteen wallaahi waxaan arkay dad badan baa ilaahay ku kaafiyey dad badan baa ilaahay ku irsaaqay dad badan baa ilaahay gacan sare kaga yeelay shaqada iyada ah yaan la yasin shaqada wuxuu leeyahay xabiibku salaatu wasalaamu calayh laa taxqiranna min almacruufi shay-an walow an talqaa akhaaka biwajhin talq waxyaabaha macruufka ilaahay raalliga ka yahay sida shaqooyinkan xalaasha waxaanoo dhan ha yasin ha xaqirin yani kula yaraan ilaahay ha ka dhigo walaalkaa ama walaasha oo aad ku qaabishid adoo dhoola caddaynaay eeg ilkahaagoo aad furtid bishimahaagoo aad kala qaadid oo aad qososhid yaa oo aad u qososhid walaalkaa iyo walaashaa waa ajir weeyaan marka allah idin barakeeyo dhalinyarada mustaqbalkooda allah ifiyo mustaqbalkooda in badan mugdi buu ku jiraa allah uu ifiyo dhalinyarada allah xoojiyo ruuxul qudus allah ku xoojiyo gacan sare allah ka yeelo ilaahay waxaan ka bariyay irsaaq xalaala dhalinyarada allah siiyo shaqooyin xalaala allah siiyo kuwa ay ku noolaadaan dadna ay wax ku taraan allah siiyo cilmi naafican allah siiyo dad badan baa runtii ducaa soo codsanaya dad badan baa ducaa codsanaya oo xanuunsan sida maamadana ugu horeysa dhalinyaro haddii aan arkay qaar badan oo hindiya loo qaaday cudurkan kansarka faro kulul buu ummadii ku hayaaye ilaahay cudurka naga qaado cudurka allah naga qaado hindiya inta la geeyey si nabada allah ku soo celiyo kuwa halkan joogay hindiya aad ilaana caafimaad allah siiyo qof walba muraad buu leeyahay muraadkiisa allah u fududeeyo qof walba muraad buu leeyahay muraadkiisa allah siiyo ilaahay waxaan ka bariyey qof walba ha ku qabsado muraadkiisa iyo wuxuu ilaahay ka rabo qalbige allah siiyo
maxaa yeelay inteenaan qof unbaa ducada laga aqbalayaa ilaahay ducada haynoo aqbalo in badan baa xerane allah soo daayo in badan baa lunsane allah soo toosiyo in badan baa maqane allah soo ururiyo hooyooyin badan baa laga qaatay ubadkii Orobiya Ameerika iyo galbeedka looga qaatay allah u soo celiyo in baa lagu soo socday allah ka celiyo awlaadeena runtii imtixaan bay nagu noqdeen waalidiin badan baa awlaadoodii ka calaacalayay allah u toosiyo baari allah uga yeelo qurratu ayn kuwa lagu qabowsado allah ka yeelo in badan baa qaamaysanoo deyn la kaca ku faye ilaahay waxaan ka bariyo deynta allah ka bixiyo idaylkiin meel walba aad joogtaan runtii aad baan idin salaamayaa marka ilaahay haydan barakeeyo jidka toosan ee mustaqbalka la yiraahdana allah idin ifiyo ilaahay waxaan ka bariyo qof walba xanuunsan allah caafiyo qof walba xanuunsan allah caafiyo xanuunka allah naga dulqaado culayska allah naga dulqaado caafimaad allah keeno ilaahay albaabada khayrka inoo furo runtii dadka jooga kaliya ma ahane dadka meediyaha igala socdana waa ducada aaminsada ilaahay ay idin aqbaleen halka aad kala socotaan meediyahaas runtii waa wadada liibaanta ayaa kala socotaan si sheegareeya iyo beejkayga maxamed sheekh ibraahim kinyawi iyo beejiska kale dhalinyarada aad aragtaan allah idin barakeeyo hala si sheegareeyo ummad badan hala gaarsiiyo qof walba wuxuu maqlay walaalihi hala sheegareeyo waxa qaylinaya kaliya yaana noqonin idinkuna qaada guryaha geeya guryaha ku qayliya oo dhalinyarada aad la shaahaysaan golayaashiina meelaha shaqada waa inaad sidaas u qaylisaan maxaa yeelay waxaad helaysaan ducada xabiib sallallahu alayhi wasallam waa ku leeyahay nadara allahu imra'an sami'a minna hadithan fahafidahu hatta yuballighahu ghayra allah nuuriya qof noloshii allah nuuriya mustaqbalkii gurigiisa hortiisa areerihiisa gacmihiisa waa kee loo duceynayo rasuulku duceynayo waa qof maqlay kelimad oo xifdiyey oo qaaday oo ghayrkii gaarsiiyey waxa aynu maqlaynaa aan gudbino aad baan idin salaamayaa astawdicukum allah alladhi